Waxaa garoonka Xaaji Daahir Stadium ka qabsoontay ciyaar saaxiibtinimo u dhaxaysay kooxaha heerka koowaad ee ka tirsan magaalada Boorama ee kala ah kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama iyo weliba kooxda ku ciyaarta magaca Gudaha Traders ee xiddigaha Boorama. Bilowgii ciyaarta ayaa ku bilaabatay ciyaar weerar iyo weerar celis ah. Waxay ciyaartu socotaba waxaa u suurta gashay kooxda xiddigaha Boorama inay dhaliyaan goolkii koowaad ee ciyaarta, waxaana shabaqa kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama dhex dhigay xiddiga la hunin laayahay sanadihii ugu dambeeyay gobolka Awdal ee Cabdirashiid Culusey. Kubad uu caawinteedu lahaa xiddiga dhexda uga ciyaara kooxda xiddigaha Boorama ee Sharmaake Xaafidka, waxayna ciyaartu socotaba waxaa isla qaybtii koowaad ee ciyaarta shabaqa ugu shubay goolkii labaad ee ciyaarta kooxda ku ciyaarta magaca dowladda hoose ee degmada Boorama, ciyaaryahan Janaka. Waxaana lagu kala nastay qaybtii koowaad ee ciyaarta natiijo dhan 2-0 oo ay ku hogaaminayeen kooxda ku ciyaarta magaca Gudaha Traders ee xiddigaha Boorama. Markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta, waxay ciyaartu ku bilaabatay weerar iyo weerar celis, waxayna khasaariyeen labada dhinac fursado aad u badan oo loo filan karayay goolal, waxaana fursado aad u badan khasaariyay xiddigaha labada dhinac. Waxay ciyaartu socotaba waxaa gool iska dhaliyay qaybtii labaad ee ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama ee ciyaaryahan Cawke, waxayna ciyaartu noqotay natiijo dhan 3-0 oo ay ku hogaaminayeen kooxda la hunin laayahay sanadihii ugu dambeeyay gobolka Awdal xiddigaha Boorama. Kadib ciyaar qurux badan oo baas ku dheehan tahay oo ay soo bandhigeen kooxda xiddigaha Boorama, waxaa dhammaadkii qaybtii labaad helay penalty ama rigoore kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama. Kubad uu khaladkeedu lahaa ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda xiddigaha Boorama ee Guuleed, waxaana gool u bedelay ciyaaryahan Jufo, waxayna ciyaartu noqotay 3-1, waxaana soo laabatay rajada kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama. Kadib weeraro aad u badan oo ay qaadeen kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama, waxaa u suurta gashay inay dhaliyaan goolkii labaad isla dhammaadkii qaybtii labaad ee ciyaarta, kadib kubad ay khaladkeedu lahaayeen daafacyada kooxda xiddigaha Boorama, waxaana u saxiixay goolkaasi ciyaaryahan Cabdiraxiin oo ka tirsan kooxda dowladda hoose ee degmada Boorama. Ugu dambeyn, ciyaartu waxay ku dhammaatay natiijo dhan 3-2 oo ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaarta magaca Gudaha Traders ee xiddigaha Boorama, natiijo dhan 3-2.